mahadsantihiin markale waxaan leeyahay soo dhawow wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Abdulrahman Ducaale Beyli waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo madasha dhalinyarada Maandis oo magacooda iyo weliba masraxyadan isku waafajiyay si dhalinyarada iyo madaxda qaranka weliba kuwooda ka shaqeeya meelaha ugu muhiimsan in ay ku martiqaadaan doodahan oo kale si ay fursad u helaan dhalinyarada su'aalaha ay qabaan inay weydiiyaan mas'uuliyiinta wasiirka maaliyadda waxaan filayaa in laga sheekeeyo uma baahna wuxuu ka mid yahay wasiirada ama hay-adaha dowladda wasaaradda maaliyadda oo wasiirka yahay waxa weeye hay-adaha ugu muhiimsan ee ummad jiritaankeed marka laga hadlayo waxaan doodan ku eegi doonaa hadduu eebba idmo maxaa laga qabtay dakhliga soo gala dowladda 3 sano ee la soo dhaafay maxaa laga qabtay barnaamijka deen cafinta oo maanta halkeebay ka taagan tahay Soomaaliya 3 sano ee la soo dhaafay meelihii la soo maray marka waxaan rabaa inaan ugu horreyn soo dhaweeyo wasiirka maaliyadda oo aan marka koowaad rabo inaan weydiiyo maxay dowladdu ka qabatay si isku filnaan waddanku u gaaro kordhinta dakhliga بسم الله الرحمن الرحيم أتبعكم مال علمية إن هذا كان يسود ويسو وهم كلام مال علمية اللي يطأروا كذا مهندس ما كان بس إن تايوان ويا قاطع مستعد هذا اسمه ما كان مجا أهدية بقرب بدن التوية فكان أتبعك جمال علمية وهذا كمان علمية اللي يطأ وبحثوا ماليات inay urur samaystaan oo urur weyn samaystaan oo really mustaqbalka waddankan ay qayb lahaa ka qaataan odayaasha waxaa looga baahan yahay inay diyaargareeyaan dal annaga sidii lanoogu diyaargareeyey oo noogu yimi si ka wanaagsan annaguna u diyaargarayno oo dhibaato kastabaa soo gaadhay waddankii oo wax ku filan aanay ku wareejinin ayaa really annaga mas-uuliyaddeedu tahay marka maanta maalin ka farxad badan ay runtii ma jirto dad fara badan baan la kulmaa oo odayaalo oo ka sheekeynaya arrimaha laakiin maanta waxaan ku faraxsanahay dhalinyartii ururkeedii waxaan u maranayaa markii u horreysay dhalinyartii ururkeeda direct ula kulmasana oo kale ay tahay marka aad baan u faraxsanahay waana idin soo dhaweynaya now waxyaalaha la qabtay ee dowladda maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xasan khayre ra-iisul wasaarihiisa ay soo qabteen waxyaalo muuqan karaba ayay yihiin kolleyba meel aad u hooseysa misla gaar waddankeenu dadkeegii ka warqabo waddankan siduu ahaan jiray sidii sii dhootona imika weli mayihin laakiin haddana meel fog ayaynu ka nimi meel fog haddaynu ka nimi waxaynu soconaa meel weli mayna gaadhin dhulkaan doonina weli adduunka waa ka dambaynaa aad baan uga dambaynaa laakiin 3 sano wixii la qabtay runtii anigu waxaan isleeyahay cidna faani adduunkaad ka maqli doontaan kana maqlaysaan inay Soomaalidu qabatay waxyaalo loo maleynayay inaanay qaban karin marka taariikhdeedii dowladda marka la eego 30 sano u dambeysay sidaan ahayn habacsanida iyo dagaalka iyo dhibaatada iyo qaxa iyo garanaysa dhibaatada ay soo martay marka adduunku taasaan ku qabtay marka markii halka dowladda aanimay anigu wasiirka maaliyadda dad fara badan oo dowlada fara badan oo aan la kulmay in xataa madaxdooda la kulanto diyaar u nahay maanta waxay diyaar u wada yihiin meel alla meeshii laga sheego day xafin in Soomaalida loo yeero oo la yidhaahdo arrintaasi nooga wadaan meesha laga sheego jiljilacsanaanta ama fragility oo la yidhaahdo adduunyada ama dhibaatooyinka kale ee abaaraha iyo wixii ku dhaca ilaa Soomaalida ka soo qaybay yaana waxyaalo badan oo soo qabtay lana warayso 3 sano waxaan soo gaarnay
inaan dad fara badan oo deyma lagu leeyahay dhaafnayno oo intaa kusoo jiro inaan dhaafno. wasiir arrinta dhinacafinta waa mawduuc iloona noqdaan laakiin ugu horeyn dhinaca kordhinta dakhliga maxaa laga qabtay? Horta waxa weeyaan waxyaalaha ugu waaweyn oo dali noqota ay tahay waxa weeye kharashkiisa inuu ku filaado. dawladdu dad baa u shaqeeya aqalay ku jirta sanoo kala dawladdu dadkaad dirateen ee wax qabtaan ay u dirateen bay tahay dalku dirtay waxay ay ku shaqayn lahaayeen gawaaridoodii iyo aqaladoodii iyo mushaarooyinkoodii iyo dhaqdhaqaaqoodii inay iyagu dhexdooda ka helaan baa adduunyada lagu qiyaasa inay dawladdaasi baaya ku tahay inay dawladdaasi tahay dawladdu wax kale dawladnimo u qalatay ay tahay waxaana ka dhiman iyadoo dakhliga taana waxa lagu gaasa waxay dakhliga waddankaaga gudihiisa aad ka ururiso. dawladnimadu waa wax inagu aan samaysanay adduunyadu samaysato dad isku tegi samaystaan oo ay yidhahdaan waxaa noo qabo waxaad ku qaban lahaydna annaga keenay ay yidhahdaan weeyaan. marka waxay ku qaban lahayd muxuu yahay dakhliga gudaha weeye ta dibadda ama lagu siyaamaya lagu soo xado leedahay ka la isku qiyaasana waa ka weyn. waxa sheegaya waxa weeye dakhliga soo ururintiisu in aad u korodhay يعني سنة والبسيط يعني كل شيء هي حقيقة وتأكد كتان أنا ومرة نمي سنة كي واحد بقول يوم لبي أفكر مليون ما أنت نوع لو بقول خطة بقولي لو بقول خطة بقولي آد إنه أكبر نوع ذلك كتان وحقيقة حقيقة وحوي ما هي وحوي وحصو أوروري ما هو حوي استعمال كل عكاس العكاس استعمال كثيرة يرداه شورية إن قف شقي واللغوية إنه شقي للسيو in qofka iyo dawladda aan cid u dhaxayn oo aan cid kale loogu sii dhiibin in akaunkiisa loogu furo loogu shubo in la xaqiijiyo qofka lacagta la siinaya inuu shaqeeyey inuu shaqadiisa qabsaday leanna dadku uu shaqeynaya shaqada lacag laga siinaya marka runtii waxyaalo fara badan oo haddana aan kusoo koobi karin oo daahfuraan iyo dawlad wanaag ayaa dawladdani qabatay inuu dhaqaalaha ka warrami karaa dhaqaalaha iyo amniga labadaba waa wasiirkii maaliyadda warbuqaaya labadaba waxyaalo waaweyn oo maanta la karo ayaa laga qabtay halkaan dowladnimada gaadhay weli maynaan gaadhin adduunka u dhigay waxay taas markay ka hadlayaan Soomaaliya maanta halkay marayso iyo maalinta ay taagay maanta meel wanaagsan maraysa waxaan xaqiiqadu tahay in hore loo socon doono haddii la qadiyay waa maasanta wasiir dakhliga 182 milyan ayuu ka soo kacay maanta waxa uu marayaa sidaad sheegtay 250 milyan in ka badan laba wajibaad ayuu kordhay sidaas la mid ah marka dib u eegno miisaaniyadda dalka ayaa sidoo kale kororkeedu aad u xooganaa oo laba wajibaad ka badan korortay 2017 marka laga soo bilaabo oo 260 milyan ay ahayd maanta waxay maraysaa 469 milyan markaad eegto kororka dakhliga sidoo u socdo sanadaha soo aadan Soomaaliya oo daraska maadaama wasaaradda maaliyadda madax u tahay oo daras Soomaaliya isku filnaan ma gaari kartaa marka dakhligeeda lagu cabiro isku filnaan inaan gaadhno waa qasab ma gaarinayo inaan gaarinayo waxaas ma Soomaaliya dawladda noqono waan isku filnaan waa inaan isku filnaan inagu ba isku waxna bari hore isku filnaan adduunka waxa la yiraahdo waxa khayraadka uu ku leeyahay iyo dadka labadaas weeye hatta dadka balaakiisa waxa marka adduunyada ay kor u barkay dadka balaakiisa inaad badleedahay inaad lahayn inaad Afrika dhexdeeda ku taal iyo inaad badleedahay sida Konoka waxaasoo dhan waxa ka important ka muhiimsan waxa weeye dadka jooga iyo maskaxdooda iyo skillskooda training la siiyey iyo governance dawladda labada marka la isku horumar la gaaro marka ma isku filaanayo ma waa isku filaanayo weeye sidaa hadday u socotana waa isku filaanayna inaan isku filaanayna qasab weeye waxaa filayaa anugu labada sano saddex sano soo inaan gaari doono inaan waxaan u baahannahay gudaha adduunka loo leeyahay dadka waxaa kaaga baxaya kharashaadka maalmo noqoto ama shaqadan kale la qabanayso loogu talagalay horumarka dalka dib u dhiska dalka investment ama maalgelinta loogu talagalay marka inaan horta kan ku filaano weeyaan kharashka gudaha inaan daboolo dabeetana loo galo kharashka dalka dhisidiisa marka ka daboosho ayaa kan kale markaa aad ama qaadan doontaan ama soo isbixinaya wada aad uga shaqaysay oo aanad qaadanin waxaan isbixinay aanad qaadan marka isku filaasho inay gaadho maskaxdeena uun bay ku xidhan tahay
inaan isku filaano inaan doonayno inaan gaadhin siday maanta wax u socdaana waa gaadhaynaa adduunka waa aad baan u daba soconaa aad baa xawli ugu soconaa waa gaadhaynaa isku filaanshaha. waa mahadsan tahay wasiir. waxaan siin doonaa dhalinyarada, laakiin waxaan rabaa ka hor mawduuca kale oo ah deyn cafinta iyo wax laga qabtay inaan galno. mawduuca deyn cafintu wuxuu ahaa 3 sano ee lasoo dhaafay mid kamid a howlihii ugu cuslaa ee dowladdu qabanayso, wasaaradda maaliyadda hogaaminaysay, sida dakhliga u kordhay iyo howlo kale xooganna way socdeen. laakiin deyn cafinta warbixinadii ugu dambeeyey ay soo saareen bangiga adduunka ama hay-adda lacagta adduunku waxay ka hadlayeen in Soomaaliya ay shuruudihii dhammaystirtay, mudan tahay in deymaha laga cafiyo. marka loona socdo wax la yidhaahdo decision point ama barta qaadashada. dhalinyarada waxaa laga yaabaa inaanay fakar badan ka haysan deyn cafin maxay tahay, maxaa deyn cafinta naftigeeda goorme waqtigee ugu dambeeya go-aan laga gaaraya. marka soo dhawo bal sharaxaad waxaa naga siisaa marka ugu horeysa go-aanka kama dambaysta deyn cafinta goormaa la gaaraya, maxaysa Soomaaliya uga dhigan tahay guushan marka laga hadlayo deyn cafinta. waa hagaagii si yaroo kooban dhalinyaro haddaan idinku sheego deymaha aan qaadanay oo kasoo bilaabmay 61 bay kasoo bilaabmay 61 ilaa 90 horraantiisii ayay ku joogsatay markii dowladda burburkeedii horteedkeeda ku joogsatay. intaa deymihii la qaadanayay oo dee dalka in lagu dhisa la doonayay, waxna lagu dhiso waddooyinka wixii jiraaba waxaa lagu dhiso waa deymaha weeye. deymihii ururay oo markaan dowladnimada ka dhacnay meel la geeyo sii kordhay ayaa la iska bixiyay. deyntii waa laynagu leeyahay. deyntaasi waxay noqotay 5 bilyan iyo 300 milyan bay noqotay. markii dowladnimadu nagu soo noqotay waxaan ku heshiinay marka waxaa adduunka kula heshiinay deyntii iskama bixin karo leanna inaad iska bixin kartien kale maqaayiis baa jirta lagu qiyaaso. kii lagu qiyaasio dhaqaala ahayd, waxaan sawran ahayd oo governance ahayd, daafuraadka iyo maamul wanaagga intiiba waxaa la yidhi haddaad doonaysaa in la dhaafo waa inaad waxaa samaysaan mana samayn karaysaan. waa inaad waxaa samaysaan mana samayn karaysaan. waan isku daynay markaa waa samayn karaynaa baan nidhi. ilaahay amarkii waan samaynay. deynta markaa in laynaga cafiyey sida adduunyada kaleba looga cafiyey ayay markaa noqonaysaa. waxa weeye deyntaasi waxay nagu leh institutionska la yidhaha IFIska la yidhaha ama baananka African Development Banka, World Bank iyo IMFka oo dhinaca iyo qolooyin la yidhaahdo ku bahoobay kulanka Paris waa magaalada Paris ku bahoobay oo iyaguna Yurub oo dhan iyo Americaska la isku daraya iyo Carabaha iyo wixii kale Bulgaria, Joseph iyo waxyaalaha noocaas oo la isku daro non-Paris. intaas saddexdaas loo qaybsan yihiin. markaa saddexdoo maanta waxay ka shirayaan dhammaystiraya qaadkoodna dhammaystireen in deynta laynaga cafiyo. markaa waxaan filaynaa hore aan ugu heshiin waxa weye imtixaanka ardaydaa fiyin ama waad soo hanjirteen. haddaad dadaasho imtixaanka warqadaada lagu soo celiyaa waa inay ku tusaa marks aad u sarreeya waa inay tustaa. annagu aad baan usoo dadaalay marks fiicanna waan filaynaa. waraaqaha qaar way noo soo noqdeen waa la maargareeyey ee baan keennay wax walba naga qaado ee baan runtusaa weeye baan keenay waxyaalaha qaar ee plus baan keenay. markaa maanta simply waxaan sugaynaa wey macallinka oo soo gala waraaqa inoo qaybiyo uma sugaynaa haddii la idhaahdo. taasina waa xaqiiqo weeyaan in deynta lagu deeyo. marka goorme marka ugu dambaysa qolooyinka aan kuu sheegay way kala duwan yihiin. qaarkood waxay deyn intooda badan bishan bay deynayaan. kuwa ku xigaana laga yaabaa bisha 5 iyo wixii laga gaarkeeda bisha 5 ayay deynayaan. marka way kala dambeeyaan way kala dambeeyaan oo IMFka iyo World Bank laga dambeeya. kuwaasi waan imika waa shaqeeya barimaasaan waa shaqeeya saayay warqadii dhamaystirka ahayd World Bank la saayay. bisha 1 waxaan tegayaa Ivory Coast haddii la yidhaahdo African Development Bank iyadana maalintaas la saayay oo reer IMFka lacagtii lagu bixin lahaa halkan aan ku saayay maalin dhexdii ahayd. marka xawli baan ku soconaa. bishan dhammaadkeeda ayaan filaynaa in deynihii la cafiyo sidaan ku heshiiyo. wamaadsantahay wasiir. waxaan rabaa inaan markan dhalinyarada fursad siino si su-aalaha ay qabaan aan uga marno. marka gabadha istaag marka
gabadhaas ka bilow magaceeda magacaaga iyo halka aad ka socoto. أول السلام عليكم مجاعي والله قليل محمد الموسيقى وكل هالسنة هاي دينا والوادي وحاطين وأنا أنا كسوق المشكلة مدك الموسيقى وحاول دينا شقدي تم هو بين أكيد يو صحيح بصير رابط واحد مكتشف بس تجد ما هو تجربة كان مكة المكرمة وصل أنا waxaan ka imaaday suuqa xoolaha ku kor muddo kalena waxaan rabaa managementiga oo canshuurta in lagu geesgareeyo guryaha aniga gurigayga waxaan ugu soo tegay waddo burbursan amni darro waxaa la rabaa inaad isku geesgareyso kaldahay tijaahka guryaha in barnaamijka oo la qabto midda kalena waxaan su-aal lahaa inaad iga qorshaysan tahay inaad samaysatid barnaamij oo jaarka iyo waxa guryaha soo kala degan yihiin canshuuraha soo kala bixiyo inaad barnaamijkaas aad ku samaysaan waa mahadsan tahay wasiir. waa mahadsan tahay yarka magacaaga iyo halka aad ka socoto. بسم الله الرحمن الرحيم. مجاعي وصالح علي واسودي أرضي كم جامعة الملك الصومالية كلية القاهرة هي معمرك وزيرك آدي يوم ما تعلن يا فرصة ونسي جالس كان عن كهدينه وحارب على سؤال إنه ويديو صار إلى صوت عفاي أما بيقولي إلى صوت عفاي بول باقي وحشاني إن دقالة لو مترجلي معمرك هالشغلة أيسية لكن معمرك أي لينا وأي قرشعة ونوف لنا العكس بسيط مركا وزارة المالية المحي ودجين ويسي العياس السينا قرشعة سؤال شيء وما ومحسن tahay qofka saddexaad aan rabaa inaan siiyo. كرح بحكيس وبحسعه magacaygu waa cabdisamed xajaam xaajdiiriye su-aashaan wasiirka weydiinaya waxa weeye laba su-aalood haddii laga ogolaado. su-aasha koobaad waxay ka hadlaysaa mudane wasiir qaadista cashuuraha dekedaha maamul goboleedada bal sidaa u maamushaan waxaan rabnaa inaad noo faahfaahiso looga qaado dekedaha maamul goboleedada kala duwan oo dhan dalka o dhan. su-aasha kale waxay sheegaysaa waddooyinka xidhan ee muqdisho oo inantu ay ka hadashay. waxaan ognahay muqdisho markaan joogno 85% gaadiidka mara lagama qaado cashuur ama mootooyin ha ahaadaan ama gawaadhi ha ahaadaan. arrintaasi miyaanay dakhli ururinta dalka aanay ku ahayn caqabad weyn ood maadsan tahay. magacaaga ku celi. qofka waxaan rabaa saddex inaan u siino wasiirka cabdisamed iyo ladan iyo saam. ladana ugu horeysa cashuuraha guryaha maxaa ka qorshaysan iyo saana maamul goboleedada si gaara hirshada loo sheegay oo nidaamkeeda maaliyadda walba iyo guddimarka sida inta wax ka ogtahay arrinta hirshabeelle lacagihii uu sheegay iyo arrinta ugu dambeyso oo maamul goboleedada iyo dekedaha maamulkooda iyo inaan cashuur laga qaado 85% gaadiidka muqdisho waxaa wax ka jira. بسم الله الرحمن الرحيم. لدري واد ما صنتهاي عشورة الدنيا وهي كملتها عشورة البرية. عشوره وهي كليه عشورها بطة يا عشورة برية عشورة بطة وكاستم مسكوية لكن سوق الله لك بحق كوا كنا وادي وحكجرة كوا سكجرة حكجرة على وحلقة هذا حكجرة بيشتري وحلقة هذا سيستكسي وحلقة هذا مرتا عشورة أنه عاصر كلام
waxaa nooga qorshaysan inay dadku cashuurta ka bixiyaan cashuuraha guriga laga qaado way kala duwan yihiin qaar waxa weeye kiradii cashuurta laga qaadayo qaarna waa laftiisa ka qaadayo annaga iyo gobolku waa leenahay marka waliba tay leedahay ayay qaataa waxaan idiin sheegaya waxa weeye adduunku waxa uu ku shaqeeyaa marka la eego dakhliga waxa badan cashuurta beriga laga qaado waa in cashuurta ka badan innaga mushkiladii dhacday daraaddeed waxaa dekedii waxay naga soo geli jireen ama dekedaha walba markaad joogto markii aan nimi markaad isku qiyaasto lacagtu meeshay ka imanayso boqolkiiba 85 waxay ka imanaysay deked boqolkiiba 15 waxay ka iman jireen markaan anagu nimi waxay ka iman jireen berigay ka iman jireen maanta waxay gaadhay boqolkiiba 50 ayaa beriga waliba 50 beriga marka inaan beriga kusii duro oo aan 85 waddankeenu ha gaadhsiino ayaa ku tala jira marka arrintaasi waa arrin aan ka shaqaynayno aan wadnana midda labaad inii sheegay waxa weeye qofkii cashuur laga qaada wuxuu maanta ogyahay waxa weeye haddaan ogeyna iminka ogaado cashuura lagu leeyahay baankaad kusoo bixinaysaa qofku ma dhiibaysid waa waxyaalaha sababaya inay yaraato musuqmaasuqa iyo wax isdhaafintu inay yaraato looga baahan yahay qofku lacagta lagu leeyahay waa loo sheegaya keliya dabeetana baanku tegi baanku markaa kasoo bixinaya arrinta labaad waxa weeye arrinta hirshabeelle baan isiri arrinta hirshabeelle iyo muxuu gobollada kale qaybta ka ah federal governmentka mashaariic baa jirta aad refer garaysay amaad saalaxow aad ka hadashay oo banka adduunku uu siiyo mashaariicda la siiyo gobollada ama dalkeena la siiyo waxay ku salaysan yihiin waxaa laga hadlaya baahidaas meeshay taalo ay ku salaysan yihiin haddii biyo la-aan laga hadlayo meesha biyo la-aantu jirto ayaa loo badina haddii fatahaadaha in wax laga qabto laga hadlayo meesha fatahaaduhu badan yihiin baa laga hadlaya mashaariicda qaar baa marka yani statesku uma heli karaan si siman uma heli karaan maanta kuwanaa badsanaya maalinta kalena kuwa kalaa badsanaya waxaanay ku xidhan tahay waxa loogu talagalay waxaa kaloo ay ku xidhan tahay capacity-ga ama kartida statekaasi leedahay maamulka mashruuca ay leedahay waxaa ugu horeeya stateka la siinaya waxa weeye marka mashruuc laga hadlayo haddii aanay lahayn weli capacity-ga lahayn oo ay u baahan yihiin in la xoojiyo horta waa la xoojinaya lacag baa la siinaya xoogooda la dhisaya institutionkii ama hay-addii arrintaa maamulkeeda geli lahayd baa loo dhisayaa kuwa siday u kala xoog reeba markaa lacagaa loo kala siinaya hadhow markay soo gaadhaan ayaa markaa iyagiina yaa la siinaya marka yacni wax kale ee hasho iyo qolaa wax la siinaya qoleeda laga dinaya ma jirto mana jiri karto habkaasi ku socotaa waana wax laga wada qayb galo weeya waxan oo marka mashruuc la samaynayo cid waliba isugu timaada meel oo laga wada hadlo oo la iska wada garto waa la yar kala dambeeya mooyaane cidna dalku waa wada dhismaya dalku waa wada dhismaya arrinta dekedaha iyo maamulkooda iminka saa og tihiin dowlad goboleedyo ayaa jira qaybka ah federal governmentka ama dowladda federaalka ka mid ah sida halkaan taaganahay maanta dee gobol waliba dekeda uu leeyahay wixii ka soo baxaa asagaa u isticmaala kharash ahaan leanna budgetkeennii weli maynaan miday inkastoo aan ka shaqaynay iskuna raacsannahay budgetkeena inagoo waddankeeyaa budgetka la midayn doono haddana maanta halkaan taaganahay halkaa weli ma aha aad iyo aad baan ugu dhownahay marka dekedaa kale wixii ka soo baxa annagu caadatan ma faragelin iyaguna waxay muuqsay agarkeed ka soo baxa fargeliyaan waxaan laakiin ka shaqaynaynaa inaan hadhow budgetka la yeelano gaar ahaan saddexda dekedooda ugu waaweyn somaliland marka imika laynaga reebo saddexda dekedooda ugu waaweyn boosaaso iyo muxuuha muqdisho iyo jubbaland kismaayo saddexdaa mar waliba kharashka halkay joogto ayay ku filan tahay laakiin waa isku imanaynaa dee dalku dal keliya weeyaan waxaan ka shaqaynaynaa sidii la isku iman lahaa dhowr shirna waan ka galnay haddana waa wadnaa in cashuuraha la mideeyo cashuuraha wixii dalka soo gelaya la mideeyo
in la mideeyo habka loo qaadayo dekedaha ayaan ka shaqaynaynaa adduunyada kalena nagala shaqaynaysa marka maalin baa dhici doonta wax walba la isla garto sida loo marinayo wadooyinka xidhan sooma cashuuraha gaadiidka anigu ma ogi cashuur aan la qaadin ma ogi aniga ogaantaydi waxa weeye ama wadada ha xidhnaan ama ay xidhnaan gaadiidka cashuur specifica ayaa u qoontaysan cashuurtaasna laga qaadaa habka maamulka ee qofku baanka tegayo ee uu dabeetana kasoo qaadanayo cashuurta kasoo qaadanaya dabeetana stickerka ku dhejinayo muraayadiisa ayaa anigu in la qaado waxaan u malaynayaa wax dhibaato badan inaan weli ku arag qof waliba waxay gaarigiisu tankiisu leegyahay iyo dee habka cashuura loo qaado oo shuruucda ku salaysan ayaa iyagana si aan ugu ogayn laga qaadaa haddaanay sidaa ahayn waa noo soo sheegi wadooyinka xidhan waa wax inagoo dhan inagu dhibaataysan laakiin dee innaga inoo wada taala amnigeena sidii loo sugi lahaa ayaa unbaa kalifaya inay wadooyinka xidhnaadaan annaga laftayada dakhligayagu marka wadooyinku xoogu xidho aad buu hoos ugu maraa dee gaadiidkii baan kala soconay marka waxa weeyaan labada iskarandhigooda amnigeenii dekedaha la furo wadooyinka la wado amnigeeni siduu isku yahay dee taariikh baa taalla hawaysan oo la og yahay maalintaa dekedaha furta waxaa dhici kara iyo maalintaa dekedaha xidhan waxaa dhici kara amni ahaan iyo dakhli ahaanba labadii markaa in laisla wado laisku eego ayuunba wadaayo ku tali jirta aad iyo aad ayuu umahadsan yahay wasiir beyde waa sii doonaa laakiin waxaan rabaa dalkan horumar ma gaari doono sida aan aniga aaminsanahay yani inta qofka muwaadinka caadiga ah uu ka gaarayo heer xitaa haddaan canshuurta laga qaadin gurigiisa uu yidhaahdo wasaaradda maaliyadda waa lagu imaamee canshuurta qaata marka waxaan rajeynayaa in yani canshuurta waxay ka mid ahayd wasiirkuna waa u ka hadlay ama dakhliga waxyaabihii ugu muhiimsanaa shuruudihii ugu adkaa ee dowladda la hordhigay inay kordhiso marka muwaadiniintana doorka ugu muhiimsan iyagaa qaatay waxaana looga baahan yahay hadda kabacdi qofkii baabuur qabo bilmatalan cabdisamid hadduu gaari qabo oo canshuurta ku maqan tahay oo iska bixiyo ladan gurigeeda haddayna canshuurta ka bixin inay keento oo lagu hilmaamay marka waa maasantihiin waxaan rabaa inaan siiyo dadka labaad hay yarka gabadhaan ugu horumarinayaa gabadhaan ugu sikeysa waa siinaya waa kusiina ku xigtaa gabadha ku xigtaa waxaan weydiin lahaa qorshihii lacag samaynta magacay waa ikraan cumar wasiirka waxaan weydiinayaa isagoo mahadsan lacagta samaynta wadanka lama samayn lacag midaysan oo wadanka leeyahay midda kale su-aasha labaad aan weydiinaayo waxaa waaye malaha wadanku sarifka lacagaha oo seeg ah hadda gobolka banaadir oo ku noolnahay halkii $24,000 lagu sarifaa halka gobolada puntland lagu sarifaayo 38,000 oo shilin Soomaaliya gobolada dhexana ay wada shaqeeyaan hadda gobolka degmada maxaa oo qorshaysan wadanka lacag midaysan loo sameeyo midana la sameeyo san lacagta oo sarifka isee laga dhigo waa mastagram gabadhan ku xigi gabadha meesha bisa yarka ku xiga weydii magacaaga bilo magacaaga bilo الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي ومنع عبد الله. آمين. دقيقة. سواء كان تفضل بجسنا قبلها. فضل ويصير الشرف بيت هاي. أنا ما أنت وقت قدير قديدهم سألنا هو يدين إنه أنا واحد بدهم كويتين تكلم يراها دخل أهان يصومالي بالفريدة أولي. واحد هاي فريدة النوبي جدا. أنت كريان كويتين واحد. وهي ما هي يركا فضل بيبوا وكامرين فضل ناس بيجسنو فرصة السينو هدي لقي أبو قوي هذا فرصة هذا فرصة سيام أيوة مقعي وحنا حافظ محمد مقع سعودي مقعي حافظ محمد حافظ
سيكو السلام يلا السؤال هو حافظ ما دام انك هضينا شقاله انا waxa weydiinaya su'aal ku saabsan shaqaalaha wasaaradda maaliyadda soo geliso Soomaali Churchka ee leeyahay World Bank ayaa ka kaabay sida uu yidhi ku jirtay 9 shaqaale ay ka badan ku jirtay shaqaalaha in si cadaalad loo qaado iyo meel lagu qaaday laba arko laakiin waxa la arkaa marka la soo geliyo kali taayir wasiirka inoo faafiyo way ayuu maasan tahay waxaan rabaa inta jirka iyo lacagtu baabuur saaxiib yaa loo naasay waxaa halkan loo fadhiyo jirka maaliyadeed Soomaaliya waa direesh dana badan iyo hawlo badan oo muhiim u ah qaranka soo tagay waxaan rabaa isdeeysano shucuurteena soo jeedino aaraa qaranka lagu dhisi karo aan keeno qofkii mar laga tiraahdo laba jeer laga tago mission qaadan aan ku raadaa فقط الدار متعود الدار إن شاء الله هاي قف تحت أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدعي وسجل وزير وحرب سجل markaan maqalno Soomaaliya diiwaanka laga afiyay waxaan u soo dhacay 3 su'aal koob halkee ayuu marayaa hanaanka dinka Soomaaliya maxay tahay shuruudaha ku xiran waqti intee ay qaadan karaan minxadka haddii dawladda laga afiyo qiimaha adeegyada guri doonta waa maasantahay isaga waxaan filayaa wasiirka waa qayb ka mid ah su'aalaha asaga waa uu ka jawaab oo ah dinacafinta halkee mare waa uu ka hadlay in 5 bisha hadduu ilaahay waa siina wareeg kale baan gelinaa laakiin wasiirkaasina maadaama 3 qof ilaa 4 qof soo weydiiyeen su'aalaha qaar uu ka jawaabay oo dinacafinta ku saabsan laakiin iyo halkee marayaan waxaan rabaa in midda ugu dambayso ah maxaa laga faa'iidi doonaa mashaariicda inaan eegno oo labada gabdhoodba gabadhii horena ay ku weydiisay Amina iyo Xaafid oo arrinta shaqaalaha inkastoo dee wasaaradda maaliyadda wasiir ka yahay wasaaradda shaqada iyo mawduucan aan iswaafaqsanayn waxaan jeclaan lahaa wasiirkan waa siinaya laakiin isma waafaqsana su'aalaha kale raba inaan wasiirka siiyo Okay, بسم الله الرحمن الرحيم. أريد أقول رئيسي إفراحين وديسي أو العقد الصومالي يصرف في يد بعض الأغراض العسكرية هرانا رنتي وارو العقد صرف العقد الصومالي كيريدي وحكمتها وحيالها القوة ودولة الإسكوت حالي تسوي كمتها يري دين عكسو سيدا قوة الله شيء في الصوماليا ولله يدكم إذا كريسنا أنا قلت بام يسوي كبر بالبان نقولي يسوي قيمة بدل يا أو وهكذا دولار كود يهي وهكذا يعني 16 يابان يا يعني قيمة هؤلاء وحنوري جري بقول مدوبة جري بقول مدوبة وحنا شقلاي إذا كركتابة يرجع كذا بقول مدوبة مركا أنا قيمة هسمع حياة كوجلو oo dawladnimada Soomaaliya waxyaalaha ku qodotaa uu yahay lacagtaadu inay jirto oo joogto shaqayso dadaal weyn baa loogu jiray laakiin soo celiyo laakiin waxaan doonayaa inaan ogaadaan dhibaatadan soo maray waxayna dhaxalsiisay in waxyaalo fara badan laynooga baahdo si aan lacag soo bixin karayn lacagtu wax badan oo caawiya ayay u baahan tahay system iyo nidaam bay u baahan tahay dad arrimaha garanaya u baahan tahay بانك سنترال بانك يجيب له هباية وباعتي وزارة المالية يجيب له هباية وباعتي ماركت كي السيستم كيف شغال يجيب له رسوم أيوة وباعتي ماركت تاسي وحنا قلت لا بس سنة إلا قصور شقيا أرمها وإن قال شو شقيان بانك أدوك يو قال أهان بانك مو هاي بانك أما العك أدوك بانك ما بانك العك أدوك يا يعني قال شو صور بينه مكان marka malaha imika in laga joogo 7 bilood waxa soo gaadhay inaan diyaar nahay ilaa kala soo daado laakiin waxa la sheegayaa wax walo la sameeyaa kharash u baahan warqada hada dabacayna soo bari karayso kharash bay kaaga baahan tahay oo tira qofka in hatta ay photocopy garee lacag baad u baahan tahay
lacag marka la soo saarayana waxay la mid tahay baasaboorka soo saaridiisoo kale la mid tahay weliba way kasii cajisan tahay way kasii adag tahay featureska loo baahan yahay sidii la doonaya in laga dhigo inaan dadku iska daabacan karin warqad caadiya maahay waxyaala badan baa lagu soo samaynaya marka annagoo damacna inaan in u soo lacagta ayaa waxaa lanooga baahday lacagtii lagu birid garin lahayo $42 milyan yaa loo baahday xaalkeenu eemiga waxa weeye waxaan damacnaba waana cid isna soo baahday yaa inaan waxaan damacneen u baahana wixii nation u baahana oo dhan ba waxaan damacnay inaan cid kale soo weydiisano waa arrintaa doon inaan ka bogsano inaan cid waxa soo weydiisano inaan ka bogsano taasina waxay xaqaysaa waxa weeye ama ay qasbaysaa inaan inagu jabi gacanta gelin wixii ku jira marka soo dowladda ku dhisno markaa sidaa daraaddeed waxaan haatan ku dari jiraa waxa weeye markaa inaan $42 milyan ee loo kusoo birangaxay lacagteennii ama lagu soo daabaco in laga shaqeeyo lacagta la soo helo lacagta barkeed baa inuu gacanteeda ku jira barka kalena kama gaabinayna waa ka shaq waxaan ku dari jiraa markaa deyntana la dhaafo lacagtii soomaalida soo noqoto dabeetana marba wixii yaraa inaga maqan la soo dhaliyo ilaa nation ku noqdo nation complete oo dhan oo dhammaanteena soo dib soo noqoto markaa taasi marka sarifka lacagta sarifka horta sarifka suuqa xukuma sarifka suuqa oo inagu bayin dal la xukumayo sarifka lacagta la xukumayo hore intaa noqotana adduunku ka weynaadayo sarif kolba waa xukuma markaa kolba tii yaraata ayaa sare u kacaysa tii soo badataana hoos bay u dhacaysa sidaa u weeyaan markaa cuntada suuqa kusoo badato way jabaysa way isjebinaysa lacagtuna qiimahaas oo kale leedahayo marka hadhow lacag shilin oo fiican la keeno markabkaa si fiican u qiimayn doona isagaa geli doona hadii la yidhaahdo jari doona qiimaheedu wuxuu yahay arrintan cafinta in badan baan ka hadlay waxaan simbali ka hadlayaa faa'iidadeedu waxay tahay waxa weeye inta haddii lagaa dhaafo adduunkaad la talgelaysa hadda waxay ahayd bixidhan yahay waxbaa diri waxbaa lagu soo diri waraaqaha dirta ee accountkaa ku jira la aqbali intii hore waxba la aqbali waa layna gooyey total lianna sidaan ahayn baa ahayd si aada u qaabtan marka maanta qaabkii baa laynoo dhisay baanankii baa laynoo dhisay dadkii baa laynoo tirengareeyey systemkii maaliyadeed baa ayaa la habeeyey dad yaqaano oo wax transfer garan kara ayaa leenahay sidaa daraaddeed waxaa laynagu aaminsan yahay in laynoo furi doono deeqaha adduunka horta kolley iyo kolley baan waxaan lehay waxa weeye kolley iyo kolley waxaan lehay soomaalidu inay ka waantowdo maxaa layna siinaya dhalinyaray arrintaasi madaxiina ka baxa maxaa lay siinaya cid wax ku siinaysaa ma jirta ilaahay baa ka waxkaasiya kala soo bax wey ilaahay baa ka waxkaasiya marka runtii narrative-ka noocaas oo kale ama maskaxda ama maxaan helayna inaan iska bedelo weya toda aan idhaahno adduunkan iyo adduunku waa baahan yahay waxaasoo badan leena waxaasoo biyaan leena waxaasoo kalluunaan leena dad badan baa gaajoo dhimanaya sideen adduunyada waxu siin karraa inaan aawo ya laakiin maskaxdeenu hadday boolku isku jirto talow hebel maxay siinaya waa arrin aada iyo aada u hooseysa weeyaan laakiin sidoo tahay haddana kolley iyo kolleyba maanta taageeraan u baahannahay taageeradaan u baahnay waxa weeye ilaa aan meeshaan doonana gaadhayno ilaa badroolkeena la soo saarayo ilaa baddeena waxa ku jira laga soo saarayo ilaa waddankeenu isku xidhmayo waddooyinka la samaynayo ilaa beeraheena irrigation systems aan u samaysan karayno caawinaynu u baahannahay caawimada aan u baahannahay ayaa deyn cafintu waxay noo saamaxaysaa in adduunku deeqina siiyo deyn ma aha in deeqina siiyo ayay noo saamaxaysaa taasaana laga shaqaynayaayo mashaariicda oo ka hadlayay ninka odayga saalax somuhay markii hore ka hadlayay taa lafteedu waxay tahay jaa-isad layna siiyey baahedo markii deyn cafiskaan si fiican usoo wadnay ayaa la yidhi soomaaliya wax hala siiyo taa lafteedu waxay ku timi juhdigiina waan samaynabay yay ku timi wax ka badan baa iman waxaa iman in deeq layna siiyo deeq meel laguma gaaro xataa deyntaa ka rooran intaad waxaa la soo amaahato adiga lagu leeyahay aad hadhowna iska bixin karayso oo aad wax soo saaraya gelinayso wixii wax soo saaraya dabeetana inkii deynta bixinaysa maa bartaaga soo harayo oo aad xisaabteeda dul fadhiisato oo ninka dhinacaa kaa fadhiya ama gabadha dhinacaa kaa fadhida aad xisaabta iskaga celiso oo aad wax isla garataan
taasa raganimadu tahay iyo dumarnimadu yaa marka deeq way noo furmi deeqahaasa markaa dalka inala dhisi doona haddii ilaaha yidhaahdo faa'iidada markaa deyn cafintaan sheegayna taasay tahay iskuullada laynala dhisi laakiin innaga inaynu maamulo waya waxay ina waxayna maamulo maarayno soo saarno adduunka inagu la falkala wayaano aan idhaahno aan soo nadiifiye maxaa lagu siinaya waxba lagu siin maayo isa soo nadiifi shaqadaada qabso waxaaga gudaha waddankaaga ka soo saar markaa taasina deytan iyadana halkaasi ku dheeriya waxyaalo fara badan waan soo maray oo ka mid yahay systemka inaan hagaajino furnida inaan samayno in qof walba halkuu ku mayan yahay la ogaado yacni wax waloo aan saxeexnaaba inuu sax yahay in laynala ogaado yaa muxuu ahaa damaanad waloo aan dhaadhaabo inay tahay mid aan fuli kara inay noqoto in layna aamino adduunkayna aamino yaa ayaynu reegi soo gaadhnay maanta in layna aamino oo la Soomaalidu waxay saxeexdo waa ka dhab weeyaan oo aan iskugu nimaado idhaahdo laba bilood kadib waxaasaan saxanay waa kan sanad hortii waxaasaan saxanay waa kan oo la idhaahdo Soomaalidu maanta adduunkeeda la tahay in la idhaahdo ayay xaqiiqi loo soo sidaa waxa kaloo meesha ku jira waxa weeyaan dowladda iyo dadkeedu inay is-aaminsanaadaan oo iyaga laftooda cashuurta laga qaadayo meesha la geeniyo waxa lagu farayo istaroo kale loo sheekaysta weeyaan la istaagsiiyo waxba la istaagsiiyo oo laysku kalsoonaado laysku dhacsanaado maasid aad iyo aad ay wanaagsan yahay wasiirka cabdiraxmaan. bismillahi raxmaan raxiim dhammaan aad baan islaamaya doosha wasiirkana aad baa salaamaya wasiir waa kugu habalyeynayna shaqada qaranka u hayso waana kugu ammaanaynaa laba su-aalood baan ku weydiinaya laba su-aaloodbana waxay ku saabsan yihiin barnaamijka deyn cafinta mudane wasiir haddii shaqada aad hayso dalka iyo dalkaba aad u hayso muddo badan waxaad ka shaqaynaysay nidaamka deyn cafinta oo dadku dhigahooda ku batay mid miyi jooga ilaa beled lowyacadda ilaa beled qooqaani haddii shaqada aad ku guulaysato maxaad rajeynaysaa in lagu abaalmariyo ama maxaad aaminsan tahay taasi waa iga su-aal su-aashada labaad waxa weeye barnaamijka deyn cafinta somaliland ma ka talageliseen haddaydaan ka talagelin laakiinse ma rajaynaysaan in somaliland caqabada ku noqon doonto waayo somaliland waa dalka jeeciisii labaad waqooyi iyo koonfur baa la kala yahay taana ma rajaynaysaa in caqabada ku noqon doonto haddaydaan ka talagelin بسم الله أول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وسير كان سيجار أيام السلامية أرتير بحوالي مركب على كتر الصدق ما دام موضوع لحري كوبعين تدخل جدارك يدين عفنته وأنا بهنا يصير كان وقلت نقطة وحصة صار لي إن المرت أورين كان جناس جواتن كان كشقينه وكان أورين بيرلا اللي هي قرينه وضل بيرنا الحياة كتير نصب إنه اللي هي قرينه نصب إنه غيرنا مثل كلا إن بدأ نمعاد تفتح ويا إنه إرجع إسلام كان كفدياش ما صارنا عند يارنا سيدا كلا وطن كانوا يقولوا شدان كنا يقرأ تحت فسير عن فرصة بحنا عن وشطنا مرة هراء لأن مركز وحنا قلنا إن وطن كفنا وطن عليه سلسلة بحي سيدا كنا عن شهور كفنا الهراء سؤال مرة واحد محل رجل بس أنت أصلاً عن كل جهنم ولا وصل محل رجل بس الله يعني تعمل إنه ويدي وحويا إلا دقالين تلاقي دخل تلاقي يعني لو بقى هي ستة أنت لو بقى عفيف وأنا هستي وماسنتهاي مقعدنا وفلسطين خليج فلسطين وماسنتهاي عربة جيس كان جي تيم كان كلام فلسطين والكل ما نسمع جودة سي جودة ويبصوري إن شاء الله. بسم الله مقعي وهذا كان حاشي سؤال أو فيديو سؤال waxay tahay wadanka wuxuu leeyahay laba wabiyo gobolada ay ku yaalaan ma horumarsana waxayna mana horumarsana hadday waxay tahay su-aasha dhanka biyaha ma horumarsana marka dhaqaalaha kordhay ma lagu horumarinay wabiyadana
ma hormarsanaa inuu ku yaalaan labada gobol ay ku yaalaan ma hormarsanaa waxa waaye labada waddan oo ugu khayraadka badan waxaana maalin kasta waxaa ka dhaca biyo la-aan oo mano marna biyaha fataha waxay saameeyaan guryahooda iyo beerahooda tan wasaarad ahaan ma u qorshayseen in webiyadaas aad ku hormarisaan kanaalada ay ku yaalaan guryadaas waa mahadsan tahay ma soo gaarnay gabadha hore بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا دمان أخيار تمدش بسرعة طبعا سيرة يسنو مقعي هو إبراهيم عمر سيد ديري waxaan kamid ahay ardayda jaamacadda Jamhuuriya والسلام يا وزير بيلي وانا kaga mahadcelinayaa waqtiga uu noo soo horay laba su'aal ayaan weydiinayaa su'aasha koowaad waxay tahay dabcan processkan iyo arrintan aan ahayd dhinaciska waxay aad u soo shaacaday intii wasiir Beylo oo ahay wasiirka maaliyadda marka waxaa jira dad badan oo idaacada dhageysiga bilaabo 2017 marka waxaan weydiinayaa processku ma mid isaga ka horreeyay oo dhaxda ka qabtaya mise mid isaga oo bilaabay taas waa su'aasha koowaad su'aasha labaad waxay tahay waddanka ugu dambeysay ay soo saartay hay'adda Transparency International haddii aan qaldaneyn waddankan wuxuu musuqmaasuqa adduunka kala kaalinta koowaad marka inta badan waxa la musuqmaasuqana lacag ayaa ugu badan marka wasiirka waxaan weydiinayaa aad ayuu u dadaalayaa oo howlaha u qabanayo u jeednaa marka sababtu halkay ka qurusan tahay sidee u saameyn kartaa arrintaasi hanaanka deyn cafiska waa mahadsan tahay sandere gabadhan geeska jirta si oo hore magacaaga ku bilow بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa xamed mayle aadan wasiirku waa salaamaya saqadgalayaasha su-aalo dhowr aan raba inaan weydiiyo wala waqtigu uu yaryahay waa ka codsanaya su-aalaha intaa dhamaysan in waqti la iibiyo magacaygu waa xamed mayle ka socota galmudug gaar ahaan degmada caabudwa su-aasha ugu horeysa waxay noqonaysaa mudane wasiir waxaan ognahay lacag 112 milyan ah in maamul goboleedyada qaar la siiyo qaarna aan weli la siin ولو يمكن يسوق بس تقل انت نسي كرامي انت عن نسي maxay tahay sababta ay uga qadeen hadda se ma u taalaa akoonka dowladda su-aasha labaad waxay noqonaysaa sidoo kale waxaa jira special arrangement la siinayay dowladda Soomaaliland waxaan ognahay inay ka xanibtay dowladdu xagee ku dambeysay lacagtaas asnaga dowladda su-aasha kale waxay noqonaysaa dowladda maxaa uga qorshaysan maadaama adigu aad ka tahay wasiirkii maaliyadda suuqyahan ganacsi ee kusoo badanaya dalka adigu mas-uul ma ka noqon kartaa ilaalinta hoos u dhaca ganacsiga dalka su-aasha ugu dambaysa waxay noqonaysaa waxaan ognahay shilinka cafintii meel fiican bay maraysaa walow processkeeda lagu guulaysta qaar ka mid ah saan ognahayna gobollada dhexe anigu degmada caabudwa hadda aan ogahay xogteeda kuna noolahay ما بتجيب العقد الشيء الصومالي حق على قشيصة العقد الشيء الصومالي وما صرت أنا قاعد أصلي يعني تقريبا اليوم إن وزير في السؤال أنا كنت بالله وزي ما دام أقول waayahay waqtigaan naga dhamaaday gabadhaan aan kusoo gabagabaynaynaa magacaa ku bilow iyo صباح قال الإنجليز صدق هذا النقطة. وقال لي طلبت أخذ قرآن عليه السلام على وزير بيلي waxaan ognahay waxyaabaha la isku haysto oo leen cafinta waa wax ay dowlad ka shaqeysa dal aan dowlad lahayn dal macna dal walba wuxuu ku dhisan yahay waa dowlad marka waxaan ka codsanayaa shacabka Soomaaliya inay iyagu ganacsigooda iyo hal abuurkooda kor u qaadaan wasiirku wax ma qaban kara shacabka wax qaban kara dhalinyarada Soomaaliya maadaama ay wax barteen waayahay waa mahadsan tahay waqtigaan naga dhamaaday waxaan rabaa Abdiraxmaan ku dar soo kob magacaa kula waqtigaan waa naga dhamaaday soo kob way بسم الله وأمر حسن إبراهيم سؤال بدر موت هوتا هورت مركو وزيرك والسلام يا سيد
wasaaraddiisaba aad iyo aad ugu mahadcelinaya shaqada adag ee qaranka ugu hayaan iyo ummadda Soomaaliyeedba. Su-aasha aan qabo waxaa waaye mudane wasiir dalku wuxuu qaatay federalism maamul goboleedyadu waxay soo gudbistaan budget waxaa la siiyaa lacago ka imaada lacagaha deeqaha laga helo baa loogu deeqaa waxaa jirto caasimadayaasha madaxweynayaasha maamul goboleedyada ay fadhiyaan inay lacagtaas dhaafin oo aynan gaarin degmooyin kaleeto iyo gobollada kaleeto oo maamulkaas ka tirsan maxaa intaa ku sheegay mudane wasiir arrintaas mana ku suubisaan dabagal aad baa umahadsantahay waa mahadsantahay qofka ugu dambeeya magacaaga ku bilow anigoo ka raali gelinaya wasiirka iyo dhammaan khiyaarta kale marti sharafta kale aanan sii badinin waqtiga haddii ilaahay magacaygu waa mawlid maxamed waxaan rabaa inaan hal su-aal oo aan dabana dhigto haddii aan laba ka dhigtana iga raali noqda awalan waxaa waaye maadaama dayn cafinta laga hadlayo oo World Bank iyo waxyaalahaas oo dhan waxaa kamid ah shuruucdiisa waxaa kamid ah in kordhinta dakhliga maadaama kordhinta dakhliga ay kamid tahay waxaa jirta boqolaal dhalinyaro oo Soomaaliyeed oo aan shaqo haysanin oo dawladdu aysan weli awoodin inay shaqo siiso laakiin ayagu isku tashadeen shaqo abuur sameeyay galay suuqaan la yiraahdo forex markay shaqadii sameeyeen faa'iido badan ka soo xareeyeen in badan dhalinyaro badan loo sameeyay haddana dawladdu ay markaan ay muran iyo gelisay oo ay ku dhigan tahay maxay tahay sababta ama cilada dhalinyaradaas isku tashatay oo shaqaysatay oo shaqo abuurka sameeyay dhalinyaradii kale kaga faa'iideysatay boqolaal qoys oo faqiir ahayd dadka u shiday maxay tahay sababta lagu haysto oo lagu dhagan yahay taasarabana wada su'aasha labaad waa maasintahay waqtigaan iga dhamaaday waa maasintahay waxaan rabnaa raalli ada lama wada gaari karo wasiirkaan siinayaa waa maasintii okay bismillaahi raxmaani raxiim su-aalo fara badan baa soo noqnoqday oo diintu ka mid tahay oo ay ka mid tahay sida wax loo qaybsado iyo mashaariicda timaada sida loo gaarsiiyo meel walba su-aalaha ugu horeeya oo adeeg cafista iyo maxaa beyle lagu abaalmarinayo anigu abaalmarin cidna uguma fadhiyo wadankaygu inuu bogsadaan raba arrintu waxa weeye gilligii halkan aan ku dhalanay ku kornay cashuurtii dadku bixiyey ma wax kusoo baranay adduunkaan ka soo shaqaynay wax waloo qabsanay ma wax qabsanay waqtigii aanu anagu dalka dib wax u geli lahay bay tahay intaa wax ka durugsan anigu madaxa kuma hayo runtiisna weeye marka intii aan dibadaas ka maqnayn baaba la tagay marka waqtigani waa waqtigii dalka waxu qaban lahayn cidna ilaahay mooyaane wax kagama sugayno waxaana mabsuud naga dhigi kara wax weeye dalkani inuu adduunyada la falgalo unbaa wax noo qaban kara taasi waa taa weeye arrinta Somaliland iyo waxyaabahan deymahan la cafinayo iyo wixii ka soo baxa Somaliland maxaa uga qoondaysan baa su-aashii uu weydiiyey Cabdiraxmaan haddana khaldanayn Cabdiraxmaan Somaliland annagu dalkay ka mid tahay Soomaaliya ayay ka mid yihiin dadka Soomaalida halkaa degeni marka inkastoo annagu deyntii dhibaatadeedii anagu halkan madaxa ku qaadnay oo anaan cidnaba waxba weydiinay wax alla wixii loo baahnaa halkan lagu fuliyey haddana wixii soo gala dalkan dadkoo dhan Soomaaliyeed baa ayaa wax ka helaya oo isku mid wuxuu uga heli doonaa haddii la yidhaahdo su-aal kalena way jirtay oo way mashaariicda ku saabsaneed iyadana oo Somaliland ribeed iyana kaa geysay waxay dalkan soo gala waa laga wada fadhiisanayaa si daah furana waa loo qaybsanayaa cidna gooni loo fuquuqi maayo ya cid waliba waxbay keenaysaa waxaa taa kale waan raacinaya mashaariicdii laga hadlay waxaan doonayaa inaa ila fahamtaan inaa mid ila fahamtaan Soomaaliyeed waxaad ila fahmaysaa waxa weeye 10 milyan haddii dalkan Soomaaliya la siiyo 10 milyan waxaan samayn karnaa dadkeena waa imisa waa 12 milyan markii uu dambeeyay la tiriyey waa 2 milyan oo qoys oo mid 6 qof ah ya haddaad doonno 10
tobanka milyan aan helo waxaanu qaybinaynaa 2 milyan oo qoys markaa qolaba in yar bay heli horta Soomaalidu sida ku qanacda waa saasu iyadoo qof walba wax adduunka saama shaqeeyo adduunka waxa shaqeeya weeye iskuulada la dhisayaa iskuulada adduunka oo dhan meel wadankeena laga weeye meeshii iskuulada noocaas looga baahan yahay ilaa iskuulada taag ma yihiin ma istiidadu way kala sarreeyaan way kala baahi badan yihiin way kala capacity yihiin way kala khayraad badan yihiin hadaa sida ay yihiin marka adduunka planka lagu wada waxa weeye hadba meeshii dhibaatadu badan tahay in la kabo Soomaalida saasay weligeed saasay hadba meeshii dhibaatadu jirta in la kabo dabeetana kuwa kale la soo gaarsiyo la wada socdo ayaa inta marka haddii weel baan 10 milyan in siiyo macnaheedu ma aha in shan qaybiyo qolaba laba hayso ma aha waa imika lacag fatahaada la dhisi lacag fatahaada lagu hagaajiyo yani soo socdo badan يقوم ولا قرر قراني ولا تهيئ سيا لأن فتحة قبل من كتير ماشي كتير أبغى لكرني هل كتير أبغى أبغى إنه لكرني لا أنا أبغى هلو بحني بيجي وقبل ما أبغى بتجي مركا أرنتان أنا اللي تريو لكنا وإحنا سي أرنتان أنك وانتونو ولي بدي كوا برتاي تكينو برتايو أرنتان أنك وانتونو وأن كنت أقول دعم كنت تدكتان مالنا أو آخرينه أنا سمعينه دبتنا تكان جهينه لا وحوي يسمى جهينه هريت عارف تيجي ولا جت تيجي هل كي تيجي لا I'm being honest with you هريت تيجي ملي أولي هنوباهن هاي تتكوح برتايوم مركوح لوشه إنترنت كذا دوكيومنتس كآخري معنا هكو دبتنا تيجي هي مرة يا فانو كوبلا قاعد يدرسون بلان باجيرة ودوي اللي سيا كيرة والودوي كوا لوكال باهية بيرة هو لوكال باهية مال بيرة كوا هابون يا مال فيشريز كوا هابون يا مال وحكرة كوا هابون باجيرة سيدا ساعدو بسرعة إنك علينا قديم ما سقناش إنك علينا قديم ما سقناش وحول برامج الله كنا مشروع لكنا مال والله يسكت إيمانا يا والله قوة هذا يا لكن وحما تشي أي ملو بكرة وحما تشي أي لا ملو بكرة oo aan wanaag awoodin baa meel fikra dalkani wuxuu ku dhaarsan yahay waxa weeye iyadoo Soomaali leeyahay iyadoo la isku wada xidhan yahay in wixii la helo hadba meesha ma garanaysaa taa in tusaysa macluumaadku in tusayaan in loo baahan yahay in aan samayno ayaa real lagu talagalsan yahay sidaas aan sameynaa deynta iyo cafinteeda waynu ka hadalay deyntu waxay leedahay 3 program baa la dhisay 3 program saddexda program mid baa laga horeeyay inta kalena annaga soo sameynay dawladii laga horeysay baa soo bilowday of course annaguna waa dhamaystiray waa qori isku dhiib weeye inkastoo aan leeyahay imtixaanadu marka kalaaska uu sii adkaadaba imtixaanadu way sii adkaanayaan marka haddaad grade 4 tahay haddaad grade 1 tahay imtixaanadu way kala adigii wixii adkaayoo dhan last 3 years ayaan soo dhamay waxaa kaloo dhigii sheegaya waxa weeye arrinta afinta todoba iyo muxuu ahayaa iyo 30 wadan baa soo maray ugu meynaan horeyno laakiin maanta waxaan idinku bushaareynaya intaasoo wadan oo inaga horeysay grade-ka markii la eegay Soomaaliya is number 1 inaga rugta sidaa weeye IMF-ta macalinka everybody weeye ayagaa yidhi ilaa iyo maanta laba wadan oo kale u baahay Sudan iyo Eritrea iyo naga saddexdaas waa intii kale oo dhan soo dhamaysay taybkii lagu dhameeyay iyo imtixaanada adeegooda iyo grade-ka keenay intaba Soomaaliya number 1 ya rugta weeye marka taas inayna tusto weeyaan in haddaan damacno oo wax qabsan karno haddaan damacno oo inagu gacmaha isqabsano wax qabsan karno ayna cid kalena u baahan karin baa ayaa magaranaysaa ayaa loo baahan yahay now arrinta shilinka waynu ka hadlay lacagta shilinka soo maha lacagta shilinku way soo socotaa dhibaatooyinkay ka mid tahay lacagta shilinka inaan soo daabacno ama shilin ha loo bixiyo ama wax kale ha loo bixiyo anu magacyo kale madaxa ku hayaay ya ama wax kale ha loo bixiyo laakiin lacag Soomaaliyeed leedahay xakamaha guud way soo socotaa maxaa iga haray marka arrinta transfers iyo federalism now waxyaalaha inoogu adag bay tahay leanna federalism wax inagu cusubay
haddaan kuwaan quroorno amba simbirirxano ama sinfano waa waqtigii ugu horreeyey waana dul qaadanaa oo ka kacnaa oo dabeetana haddana ka hawlgalaa wey lacagta federalismka annagu waxaan ognahay waxaa weeye wixii dowlad goboleed loo transfer garaynayo hab baa lagu transfer garay waxay ay soo qorayaan ku qabanayeen waxaasaa lagu transfer garanayaa adduunkuna waa inaloo yahay waxaa ka mid tahay waxyaalaha conditionska ama shuruudaha ee ay ku xidhaydeen cabinta ku xidhayd weeyaan habka loo transfer gareeyo wixii lagu transfer waxa lagu falayo eegada waxa lagu falayo lagu qabanayo in la soo qoro inaan dabeetana aan eegno inaan wixii ku qanacno lacagtiisa lagu transfer gareeyo hadhow lacag kale markay timaadana kii hore laga soo report laga soo celiyo ya report celin la soo sameeyo oo dabeetana tansaa lagu bixiyo ayaa annagu aan ku shaqaynaa kolley base canaantu way iska jiraysaa meel walbo inaan sii hagaagno ayaa loo baahan yahay maxaa yeelay now arrinta employment creation employment shaqaalaha dhalinyarada shaqaalaha samaysay ee dowladdu ku dhegan tahay ma uu ku wahay taasi waxay tahay kama warqabo ya waxaan u qalinayaa ciddii shaqa abuur caafimaad qabo oo xalaal idindiida waxaa ku dadaalaya waa shaqa abuur waxaan u taaganahay wey waxyaalaha inaan dhalinyarta iskuullada kasoo baxdaan weli la shaqaalay waxaana ku dadaalayna deyn cabdisku inuu wax u taro dhalinyarta dowladda u soo qalmayn laakiin adduunmo oo beec furmo oo dhismaha ku furmo oo dhalinyarta engineer ka qayb galaan oo kuwa finance ku ka qayb galaan iyo management ka qayb galaan taasaan runtii ku dadaalayna markaa iman to qola dhalinyaro samaysay shaqo samaysay in cidina isku hortaagayso laakiin waan u gudageli doonaa haddii jirto السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ما فيها وزيرك مالية حكومة فدرال الصومالي وعنكريا إذا كنا سؤالات كتير سؤالها وعاصم مدن وزيرك مدلوا بدن سلام وكلاء وفرصة أسي وبالشريك وحكوا إيديا رماه وزارة المالية وعاد فرصة بدن ويل دوتا سلام كلنا وزارة الانتاج وسلام وجاي هلا إيم وفد الله تعالى وسؤالها بقول إيدي كرو وزيرك وزارة marka aad iyo aad ayaan ku mahadcelinayaa wasiirka waa mahadcelinayaa waxaan u mahadcelinayaa cabdiraxmaan iyo madasha maandis oo maanta doodan iyo doodihii ka horreeyey dhammaantood uga hadlayay ama dakhliga gudaha ama madiir cafinta maalgashiga iyo shaqa abuurka soo qabanqaabiyey anigana waxaan leeyahay waad mahadsantihiin aad iyo aad buu mahadsan yahay wasiirka wasaaradda maaliyadda jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mr cabdiraxmaan ducaale beyle iyo cabdishakuur waxaan rabnaa ugu dambeyn inaan hal ugu yeero safiyo daahir oo ka mid ah dhalinyarada soomaaliyeed ee da-daya si ay u guddoonsiiso shahaado sharaf dr cabdiraxmaan ducaale beyle wasiirka wasaaradda maaliyadda soomaaliya waxaa codsanayaa qof walba oo halkan joogo inuu wasiirka uga mahadceliyo dadaalkii dheeraa ee loo soo galay dhinacinta Soomaaliya. Excellency